Soomaaliyeeyoy haddad wax maqlaysaan hadalkayga qaato haddad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye muddo 3 sano ku dhow magaalada beledweyne lagama isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga isku dayo badan oo ay sameeyeen dad ganacsato ah iyo shakhsiyaad isxilqaamay laguma guuleysan in dib loo soo celiyo lacagtaasi haddaba ma lagu tilmaami karaa inay jirto qorshe la'aan dhanka maamulka oo ku aadan in la soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah barasare Cabdinaasir Maxamed Cabdi iyo Faarax Maxamed Cawaale hadalka waxa ku hormaraya Ustaad Cabdinaasir sababta keentay in dadka danyarta ay maanta door bidaan magaalada ay ka baxaan oo meelo kale ay micin badan waa dhibaatada ka timiday shilinkii Soomaaliga ee meesha ka baxay iyo noloshii oo runtii aad u adkaatay meeshan waliba ay ka jirto baahi yani dhanka maamulka oo hadda aan xooga saaraynin amaba u muuqan inuu wax ka qabanay dhibaatooyinkaas jiro haye Farax shilin Soomaaliga runtii horta waxyaalaha oo marka hore uu joogsaday waa waxaan ognahay lacagta shilin Soomaaliga ee ka timaado dhinacan Puntland oo ahaday oo lagu soo sameyn jiray maamulka marka Galmudug oo lacag feelfeed taas oo ganacsada maxay ahaday gobolka Hiiraan lagu dhacay taas markii lagu dhacay gobolka ganacsada waxay door bideen in lacagta shilin Soomaaliga ay joojiyaan haddana maxay ahaday maamulka waxa uu ka qorsheysan ganacsada ka maamul ahaan sidii lacagtaas loo soo celin lahaa oo loo socodsiin lahaa laakiin mar kastaba waxay ka timaadaa ay ka go'daa baahida maxay ganacsatada waa in ganacsatadu hadii on qalaan in shilin Soomaaliga la socodsiiyo dadkoodan u beernahan aniga waxaan qabaa in shilin Soomaaliga oo la socodsiin karo Cabdinaasir waxa uu leeyahay Faarax lacagta shilinka Soomaaliga ee la isticmaalay wuxuu ahaa mid faalsa ah ganacsatadu waxay u arkeen inay dhibaato tahay xal ay moodeen lacagaha horta laga isticmaalay magaaladani waxay ahaayeen lacag kala duwan oo lacag yani la soo been abuuray oo koobi ah iyo lacagii hore ee dawladda Soomaaliya qaar ka dambeeyay ah marka ganacsada runtii kaligeed looma saarin kar dhibaatada ganacsatadu waxay kamid yihiin bulshada ayay macnaha matalaan marka dhibaatada meesha ay ka bilaabatay magaalada uu soo wada joognay waxay ahayd in lacagtii qaar ka imaanay goboladan Puntland iyo Galmudug yani la yiri lama qaadanayo waa fals kadibna ganacsatadu naftooda waxay isku dayeenay inay lacag ka keenaan magaalada Muqdisho lacagaas oo dadka beledweyne degan markaas ay u haysteen in ay tahay lacag soconayso dadaalo badan ay sameeyeen laakiin nasiib darro maysan ku guuleysan taasna marka waxaan u aanaynayaa runtii in qayb weyn ay ku leeyihiin maamulka maxaa yeelay maamulka ayagu waxay wax ku qaadaan waa lacagta dollarka canshuuraadka waxay ku qaadaan lacagta dollarka mishaaraadka waxay ku bixinayaan lacagta dollarka marka maamulka dhowr mar ay ganacsatada la kulmeenay sidaan ka warhayno ay isla soo qaadeen sidii ummadan loo badbaadin lahaa shilinka Soomaaliya loo soo codsiin lahaa laakiin xaqiiqda oo aan la iska indhatireen marka aan ka hadalno maamulka dhankiisa ay ka jirtaa maamulka waxa la rabay in ayaga u bilaabaan yani dadka oo ay ayaga hormuud u noqdaan canshuurta lagu qaado mishaaraadka ciidamada lagu bixiyo lacagtiina Soomaaliya markaas way socon lahayd laakiin ayaga ka jiifo hay Farax maamulka hadda waxa kaga qorsheysan siday noo sheegeen oo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Abdullahi oo sheegay canshuurta in lagu qaadi doono shilin Soomaali in mataqaanaa mushaaraadka shilin Soomaali lagu bixin doono in mataqaanaa juhdi badan maxay lagu bixin doono shilin lacag shilin Soomaali loo soo celin lahaa dhibaatadana labada qolaba way taabatay maamulkana waa saameysay hadda lagu diidin ee ganacsadana way saameysay marka maamul iyo ganacsato iyo bulsho wada shaqeyso hadii la helo aniga waxaan qabaa lacagta shilin Soomaaliga oo la soo celin karaa waa sida ugu fudud lagu soo celin karana sidaas way haye okay waxaan weydiinaa walaalkay shilin Soomaaliga qaadanayo oo lagu dadaalka lagu jiro waa kay waxaan ognahay in hadda wadanka lacagta shilinka Soomaaliga gaabs ay ka tahayba xitaa caasimadda markaan fiirno Muqdisho lacagta shilinka Soomaaliga way baabaaday kadib dawladda dhexe Soomaaliya ma jirin lacag oo la soo sameeyo oo sax ah marka lacagaha shilin Soomaaliga ee hadda dadaalka loogu jiro la qaadanayo waa tii Farax okay lacag shilin Soomaaliga dadaalka loogu jiro waxay tahay hadda dawladda federaalka lacag soo sameynaysa taas wali lama gaarin way iska imaan doontaa laakiin hadda lacag shilin Soomaaliga hore uu shaqeeyaa maxay ahaday Soomaalina
uu ka shaqeeyaa muqdisho uu ka shaqeeyaa gobolada dhex uu ka shaqeeyaa aadaanu mataqaanaa uu wadanka weli kabaabsi ma aha walaalkay kabaabso laakiin weli kabaabsi ma aha ilaa intii xad ah lacag shilin Soomaali isticmaalna waa heli karnaa dawladuna waa ku howlan tahay sidii u geyn lahayd lacag shilin Soomaali oo lacagta loo guur lahaa si u geyn lahayd ku howlan tahay marka lacagta shilin Soomaaliga ee la geenayo oo lacagta shilin Soomaaliga ee muqdisho laga isticmaalay oo Soomaali inta kale laga isticmaalay si aan gobolada kale mataqaanaa aan ula siman waxaan dhihi lahaa meesha hadda halkaan ka sii dhexgalo horta Soomaalida waxay tiraahdaa haddii run aan sheegay been baa qarsoon marka sidaan hore u sheegayna ganacsato waxay isku dayeen badan in lacag laga keeno muqdisho halkan la keeno si loo socodsiyo shilinka Soomaaliga dadkuna hal dhig bay wax ku maqlaan waliba gaar ahaan dadka xoololeyda ah ee magaaladan wax u soo safarsado oo yaani xoolaha keensado mar ayaa la dhacay mar labaad ayaa la dhacay marka maba aaminayaanba dadka hadda hadii lagu guuleystay shilin Soomaali inuu socdo waxa jira dad qaar oo lacagii hore cadcada ee dhacay juwaan ugu xareysan yihiin oo baqaarada u rasaysan yihiin yaa damaanad qaadaya marka in lacagaas aan marka la soo dhaxgelinaynin waxa waliba saka ugu weyn keenay waxay ahaday in lacagihii ayadoo mar la isku day in la socodsiyo lagu dhaxarkay lacagihii cadda ee koobiga ah marka hore intaba buuqa ka bilowday marka waxaan si leeyahay arintaas waxay u baahan tahay fadhi badan iyo tashi badan iyo in markino meelo badan laga fiiriyo ay farax lacagaha shilin Soomaaliga ee dhacay oo feelsax magaalada ku bixin runtii waa maxay ganacsatada sarifleyda waxa dhan waxay sheegeen in ay ka damaanad qaadaan oo ay ilaalinaan in aan lacagtaas la dhaxgelinin saas la aligeenne ay mataqaanaa ay dhaheen waa in mataqaanaa gacan kula siiyo oo nagala shaqeeyo in lacagta shilin Soomaaliga la soo celiso anaga waxa damaanad farax sariflayaasha ma mas'uuliyadda qaadi kara ma maamulka laga raba inay qaadaan maxay marka sababta maamulka mas'uuliyadda uu qaadaa maamulku cid alaale cidi oo lacagtaas feelsa dhaxgeliso ay soo qabtaan maamulku wixii kaga aadan dhanka sharciga oo marsiina laakiin cidi wax sarifaysay oo lacagtii gacanta ku haysay oo mataqaanaa maxay ahayd in ilaalisay la rabay kan waxa waaye maxay sariflayaasha Cabdinaasir maxaa diiday in ganacsatada iskaashi la sameeyaan maamulka si lacagta loo socodsiyo runtii wax diidaya ma jiro ganacsatada intaan ka warhayo kuleyba waxa jira kulmo badan oo ay la sameeyeen maamulka ay waliba aad isku dhabar jibinayeen sidii shilinka Soomaali loo socodsiin lahaa laakiin maamulka waxaad moodaa xogaa xadkii loogu talagalay inaysan gaarsiin dadaalkooda si kastaba ha ahaato iyo kuleyba waxyaalaha jiro ma ogaan karna anaga shacab baan nahay kama warhayno laakiin waxaan oon muhiimadda ay tahay shacabkana markaas ay dalbanayaan in shilinkii Soomaali la soo celiyo maxaa yeelay anagu waxaan ahay dad Soomaali ah dadka yani waxyaalaha lagu gartan waxa kamid ah dhaqankooda iyo maxaa la yiraahdaa diintooda iyo lacagaha isticmaal anaga Soomaali ah shilinka Soomaaliga nagu leeyahay inaan qaadano laakiin markaad magaaladan beledweyne aad fiirisid waxaad moodaa magaalo kamid ah Mareykanka runtii oo dollar waxa aan kama shaqeeyo mid oo electronic oo hawada la isku mariyo mid si caadi cash la isku siiyo ay farax horta runtii maxay ahayd ganacsatada hadda anagu asoon maamul u yeero cidna u yeerin way isku yimideen shalay maxay ahayd ganacsatada magaalada beledweyne tagan sidii shilinka Soomaaliga loo mataqaana loo socodsiin lahaa waxayna u yeerteen in uu maamulka maxay ahayd heer tagni heer gobol ka soo qayb galo sidii ay ka mataqaana ay wax ula socodsiin lahaayeen marka baahidan waa baahi ka timid maamul ka sugow ganacsatada iyo bulshada ka timid wax ganacsadii bulshada ka timaadana maamulku ku qasban yahay inuu asaguna oo meel mariyo because maamulku sidiisaba bulshadu u adeega ay Cabdinaasir ugu dambeyn maxay tahay taladiina si loo soo celiyo shilin Soomaaliga in laga isticmaalo magaalada dadkii masaakiinta ahaa ee nolosha dhibaatada kala kulmay ee magaalada bilaabay inay ka barakacaan looga baaji lahaa inay magaalada ka jiraan horta intaan u soo gudbin su'aashaada waxaan wax yar ku sii kabayaa hadalka walaalkay in badan wuxuu ku soo celiyay maamulka ayaa ku howlan arintan marka maamulka ama ha noqdo mid gobol ama mid heer maamul goboleed ha noqdo qofka markuu xanuunsan yahay xanuunkiisa bilowga ayaa la daweeyaa qofka markii uu yaani meel adag gaaro waxa laga yaabaa xitaa in wax laga qabwaay marka waxay u leedahay xilli hore in wax ka qabtaan lacagta xilliga dhacday ma dhaweyn dhowr sano ay ka soo wareegatay hadda iyo marka dan haddii aan u soo gudbo su'aashaada waxay Soomaalidu ku maamaadaa caanada tadabadu ayaa la qabtaa dadkana hadda ay badbaado u baahan yihiin runtii dhibaato badan ayaa magaaladan ka jirto shacabkii waliba dadka oo yaani heerka hoose dhibaato weyn baa haysata cunuga kabaha casaynay baarsilaha ah midka xamaaliga ah ee xoogiisa ku nool maalintii macnaha ilmihiisa u soo yaani xoogsanaya midka maskiinka ee meelaha ka dawarsanaya dhammaan qaarkood xitaa waxa jira aan garanayn sida hadii xitaa telefoon loogu tuuro yaani aan ka tuuro karin ama processkii la maray aan garanayn marka waxa anigu taladii tahay runtii maamulka heer gobol reed bantan ka maamul gobolka Hiiraan oo hadda runtii hormuud ku yahay gudoomiye Caraale
iyo sidoo kaleenta wasiirka maaliyadda ilaa iyo heer madaxweyne arrintan runtii il naxariis lagu fiiriyo dadka loo danqado waxa ay madax ku yihiin oo xilka ay ku hayaan oo kursi ay ku fadhiyaan waa dadkii hadday la'daanna wax la xukumay ma jirto farax lacagta shilin Soomaaliga waxa geliyo lagu meel marin karo waxay tahay in mataqaana ganacsadan ay ka dhabayso in uu shilin Soomaaliga socdo maamulkan oo qarab ku siiso oo socon lahaa canshuuri ay ku qaadaan canshuurtii shilin Soomaaliga lagu qaado mushaarka lagu bixiyo adoo la guudidin anigu waxaan qabaa haddii intaas la sameeyo inuu shilin Soomaaliga uu socon karo reer beledweyne waa xawaayin ayagu laftirkooda waa in ay ku kalsoonaadaan inay lacag shilin Soomaaliga ay qaataan dhibaatada uu leeyahay dollar way arkeen FC dhibaatada uu leeyahay way arkeen maciishada xumada oo keenta way arkeen ayaga laftirkooduna waa inaysan mataqaanaa waxaan ku kafulno lacag feelsax ku dhex jirtay waa la dhaca iyo inay ka waandoobaan taas anaan ku soo gabagabeynaa runtii guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo hoy hoy Soomaaliyeey hoy 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 Soomaaliyeey hoy haddad wax maqlaysaan hadalkayga qaato haddad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dhulka horumarkiisiyo hawl fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkeenna subscribe dheh dabadeedna furo gambaleelka si aad u hesho wararka iyo warbixinnada aan halkan soo gelinayno.